sheekh Shariif oo raaligelinayay madaxweyne Farmaajo xalay ka dhacay guriga madaxweyne Farmaajo oo la isku masaamaxay khalad uu sheekhu ka galay madaxweyne Farmaajo oo soo bandhigay iyo codsi uu u gudbiyay oo la aqbalay warbixinta galwareed cafis iyo masaamax madaxweyne Farmaajo oo caloosha u furay sheekh Shariif iyo Shariif oo dalbada inay isgarabsadaan kana heshiyaan madowgii hore u jiray sheegay warbixinta oo ku faafiyay dunida maalba ku tooran muuqaalka YouTube keena galwareed TV na subscribe soo saar way hagaag aan ku bilaabo madaxweyne Farmaajo ayaa habeenimada xalay gurigiisa ku qaabilay madaxweyne hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyaga oo markaas Sheekh Shariif oo dalbaday kulan in la yeesho madaxweyne Farmaajo si uu cafis guud u weydiisto iyadoo labada mas'uul ay ku wada kulmeen guriga madaxweyne Farmaajo oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo halkaas isku cafiyay isla markaana Sheekh Shariif uu soo bandhigay khaladaadkii uu madaxweyne Farmaajo ka galay intii uu mucaarad ka ahaa madaxweyne Farmaajo oo talada dalka hayay arintaasi oo noqotay mid la yaab ku noqotay madaxweyne Farmaajo Sheekh Shariif ayaa madaxweyne Farmaajo ka codsaday inuu cafis guud u fidiyo arintaasi oo markaasi u sababay inay tahay mid xilligan ay tahay laga maarmaan maadaama labada mas'uulba aysan wax xilaahayn loona baahay inay isgarabsadaan oo ay dalka ka badbaadiyaan khataraha soo wajahay ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale kooxdiisa ay ku hayaan dalka madaxweyne Farmaajo ayaa si deeran u soo dhaweeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo u ballan qaaday inuu la shaqeynayo isla markaana garab ku siinayo sidii dalkan looga badbaadi lahaa dhibaatada soo wajahday iyo maamul xumada uu hadda wajahayo ee sababtay in dalka Soomaaliya ay hadda ka taagan tahay xaalad adag oo qabaa'ilada ay qaylinayaan culimo diinka aysan qanacsanayn sidoo kalena odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanadii ay iska soo horjeedaan oo la diidan yahay liiska golaha wasiirada ee dhawaan la soo saaray oo noqday kuwa markaasi kale ardayay qabaa'ilaadkii Soomaaliyeed ee isu qabay codada isla markaana hadda kala shaki cusub ka dhex abuuray shacabka Soomaaliyeed Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu ka cafiyo khalad uu ka galay intii uu tirada hayay iyo dhowr mar oo hadallo qadaf warbaahinta u marsiiyay arintaas oo madaxweyne Farmaajo uu si deer u soo dhaweeyay oo ballan qaaday inuu garab ku siinayo sidii markaasi looga gudbi lahaa madowgii hore u dhacay iyo xaaladaha dalka ee hadda loo baahan yahay in laga tallaabo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale u sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed in arinta loo baahan yahay ay tahay in labada mas'uul ay si weyn markaasi caloosha isugu furaan kana gudbaan oo ka tallaabaan dhibaatooyinkii hore u jiray ee markaasi ka dhashay xilliga mucaaradka ee Sheekh Shariif oo baraha bulshada ka weerari jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed u sheegay in hadda xaalad adag oo dalku ku jiro loona baahan yahay in ay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed garab isisiiyaan lagana gudbo xaaladaha hadda jira ee markaasi dalka Soomaaliya oo wajahaya iyo khataraha soo food saaray dalka ee la xiriira sida loo maareynayo maamul xumada dalka soo wajahday ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ay markaasi dalka ku hayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markaas sidoo kale soo bandhigay faa'iido ay leedahay in labada mas'uul ay si weyn garab isugu noqdaan ayna markaasi iska kaashadaan dhibaatooyinka kala duwan ee markaasi Soomaaliya ay wajahaydo wuxuu sheegay madaxweyne Farmaajo in xaaladaha guud ee dalka gadaaman ay yihiin kuwa markaasi loo baahan yahay in wax laga qabto oo Soomaalida dhexdeeda iska cafiyaan isla markaana uu isaga laftirkiisu bilaabayo cafiska iyo dadka raaligelinta ugu imaanaya inuu markaa cafis guud u fidiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha hore ee Soomaaliya ayaa go'aansaday inuu madaxweyne Farmaajo u tago isla markaana uu cafis ka dalbado sabab la xiriirta in uu baraha bulshada ka weerari jiray intii uu tirada dalka hayay sida markaas xoog kala duwan aan ku helnay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa arintan waxa ku kalifay kadib markii uu markaasi soo xasuustay in xaalad adag ay markaasi dalka Soomaaliya wajahayo ninka kaliya ee markaasi ku xisaabi kara kooxda Xasan Sheekh Maxamuud oo yahay madaxweyne Farmaajo maadaama isagoo hadda uu talada dalka uga dambeeyay Sheekh Shariif heshiiska labada mas'uul mar iyo sidoo kale aragti duwanaantii jirtay la soo gabagabay ayaa sidoo kale abuuri karta bog cusub oo ah in xisaabtan dhan uu bilowdo isla markaana siyaasiyiintu ay si weyn uga horjeestaan khataraha ku soo wajahan dalka warar kala duwan oo helina ayaa markaasi ku soo warramay in golaha wasiirada Soomaaliya dhawaan la horgeynayo baarlamaanka iyadoo saacadaha soo aadan lagu wada in la ansixiyo walow uu buuq baahsan haray
golaha wasaarada Soomaaliya ayaa la horgeynaya xildhibaanada golaha shacabka iyadoo codsi kalsoonida ay u qaadayaan. waxaase hubanti-la'aan badan ee hareynaysa arrintaasi maalmihii ugu dambeeyay wasaarada ayaa wada dadaal xoogan oo codka kalsoonida ay ugu raadinayaan xildhibaanada beelahooda iyagoo ku guuleystay inay ka helaan ballanqaadyo balse ma cadda waxaa dhici doona marka codka la qaadayo. wasaarada ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhinacyo kala duwan oo isbiirsada dadaaladaas oo la doonayo in codka kalsoonida lagu siiyo. waxaa dhinacyadaasi ka mid xildhibaano careysan kadib markii ay xilal wasiir soo waayeen madaxdii hore ee dowladii nabad iyo nolol, madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo xildhibaano qaab beeleed oo abaabulan oo ku dooday in beelahooda aan la siin wasaarada ay u qalmeen. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sameeyey dadaalo xoogan oo codka kalsoonida looga raadinayo xildhibaanada, waxayna u baahan tahay in la meel mariyo sida aan xogta ku helnay. xukuumadda ayaa waxaa caawinaya iyada oo ku dhawaada 50 xubnood oo kamid ah golaha wasaarada ay yihiin xildhibaano, waxaana la filayaa in kooramka uusan ka badnaan qiyaastii 150. xildhibaanada ayaa laga codsaday in markaas xilli hore soo xaadiraan kulankan oo muhiim ah. waxaa golaha shacabka hortegi doona ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo marka hore xildhibaanada Soomaaliya weydiisan doona inay u meel mariyaan xukuumadda uu soo dhisay si ay u gudato waajibaadka horyaalla ee loo egmaday. arrimaha sida weyn u hareynaya in markaasi Xamse Cabdi Barre iyo kooxdiisa ay heli doonaan codka kalsoonida ayaa waxa ay tahay in ay mas'uuliyiinta uga sarreeya ee guddoonka golaha shacabka xataa aysan isku waafaqsanayn sida codka kalsoonida loogu raadinayo xildhibaanada. arrintaasi oo noqon doonta mid kale oo iyada laftirkeeda su-aalo waaweyn la iska weydiinayo. dalka ayaa hadda wajahaya xaalada halisa oo markaasi si weyn khatar uga ah qaranka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa waxa uu sheegay in dowladiisu ay dhisi doonto waxa loo yaqaan buffer zone ama xad amni ah oo markaasi al-shabaab ay isaga waardiinayaan. hindisaha uu sheegay Mustafa Cagjar waa mid uu danjire Simon Mesfin soo jeediyay 2018 mar uu maqaal ku qoray wargeys cilmiyeed. Mesfin wuxuu soo jeediyay in la taageero waxa uu bixiyay jasiirado nabadeed kuwaas oo sii kobcin doona marka la filayo dhulka amniga. Soomaaliya hadda ciidamo Itoobiyaan ayaa kasoo tallaabay xuduudda gobolka Gedo iyagoo gudaha gobolkaasi soo gaaray. sida aan xogta ku helnay ma jirto dhaqaaqa ciidan oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay bilowday. arrintan waxaa looga qabanayo waa xusuus mudan tahay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay ku sugan yihiin dalka Itoobiya halkaasi oo markaasi la aaminsan yahay inay u joogaan arrin la xiriirta khilaafka soo kala dhexgalay iyaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay saluugeen sida loo soo dhisay xukuumadda cusub ee dalka Sheekh iyo xogaan qeyb falan horwada aragtida inta ay koonto dambana nabadgelyo.